inaan kusoo muuqdo sidoo kale waxaan rajayn doonaa in ay noqonin marka ugu dambeyso laakiin waxay tahay hadda marka ugu horeyso insha Allah ma noqon doonto marka ugu dambeyso mar badan way u arki doontiin jaankan sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay maanta walaalkay inaas gurigeyga ama hooyageyga igu soo booqdo sidoo kalena asoo macnaha enjoy ta brother haddii mar aan dhaho degmadeyda waaye waxay la macna ataa in meesha aan ka dhaladay lahjada fiir waa kala tahay qofka markiis barto iyo markiis ku dhashto isku mid maaha waxay la macna ataa in aan ka dhaladay inta lahjada fiiriya laxanka xitaa fiiriya laxanka kama labadulu sara si wada jirumada kulli sona dhahan badiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada YouTube channelka Amaada Afgooy official maanta waxaan boqosho ugu imaanay Kamaal Abdul ujeedadaan ugu imaanayna wax kale ma ahan inaan wax badan ku ogaano safarkiisa Malaysia ilaa Soomaaliya gaar ahaan degmada Afgooy dad badan waxay iska weydiinayaan Kamaal talo muxuu soo baxay muxuu soo raadiyay YouTuberada Turkiga aadaya moo kamid yahay isagana Turkiga ma u socdaa waxyaabo badan aan rabnaa wax ka ogaano xaqiiqda dhabta ah su'aalo waxa jiraan oo dadka ay weydiinayeen intaas oo dhan waxaan rabnaa wax ku ogaan marka hore Kamaal ku soo dhaw YouTube keena asxaab badan oo aad share aad u sameysay halkan ku jiraan bal hal iyo labo marka hore YouTube ku soo dhaw horta maasha Allah aad ugu dhawahay YouTube channelkaada sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay YouTube channelkaaga inaan kusoo muuqdo sidoo kale waxaan rajayn doonaa in ay noqonin marka ugu dambeyso laakiin waxay tahay hadda marka ugu horeyso insha Allah ma noqon doonto marka ugu dambeyso mar badan way u arki doontiin channelkan sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay maanta walaalkay inaas gurigeyga ama hooyageyga igu soo booqdo sidoo kalena asoo macnaha enjoy ta brother fanti marka waa dhawahay su'aasha rabtana kulay saaka dhawaajis waxa dhahay su'aalo macnaha ku weydiina su'aasha rabto way weydiin kartaa inta oo dhamay muruqna u leeyahay muruqna ma aha oo yadamo waa dhawahay brother jima tagtaan walana marka Kamaal reer Afgooy miya waa su'aasha dad badan is weydiinayaan si fiican ana waxaan dhahay Kamaal reer Afgooy wili af maamay u soo ka waramaw aan sinka soo duubay si fayle bal hadda hal iyo laba horta meesha aan joogo degmadeyda waaye haddii mar aan dhaho degmadeyda waaye waxay la macna ataa in meesha aan ka dhaladay lahjada fiir waa kala tahay qofka markiis barto iyo markiis ku dhashto isku mid maaha waxay la macna ataa in aan ka dhaladay inta lahjada fiiriya laxanka xitaa fiiriya laxanka marka maasha Allah raaf gooyan ahay sidoo kale qofkii isleh ama qofkii maskaxdiisa ku guuxooso Kamaal raaf gooy miya inta soo jeeda raaf gooyan ahay ani waan ku faanahay degmadeyda dada waxay arkayeen adoo beeraha joogo oo cambe iyo marka waxa la dhahay ninkan dalxiis loo imaad markaas waxaan dhahay xiiso uu qaba maadaama dhowr sanadood cambe fresh oo geed laga soo goosanayo mooskii uu sacunin bal naga dawgay arintaas horta sax waaye hal mid horta qofka markii sanadooyin badan aska maqan yahay wadankiisa ama degmadiisa wax badan oo soo xiisa aniga xiisa badan ay yahay sidoo kale fiidiyoda aan soo bandhigayo meega ah ani wax aan soo bandhigayo ama idinka gafaanayo oo macnaha kana idin dheeraha idin dhaway maaha waa wax aniga u soo xiisi waaye shaygan aan sameeyno taas iga hilow oo wax badan aan dareemayo ambahan iyo isbondeskan iyo hinfaal ama beedaankan arkoosin baryahan waxa waaye wax aniga u soo xiisi waaye markii meesha aad joogto aan laga helayna soo fresh siniyada u goosanaya meesha aan joogan waxa waaye qudaarteeda dhan gacan kurumisay u badan tahay wax farinjeer ku jiri marka meesha waxa waaye wax fresh wax enjoy inta ugu ma baabala waa tahay waxaan bilaabaynaa su'aasheena safarkaaga Malaysia ilaa to Muqdisho Afgooy bal hal ilaa waxyaabo aqabad oo aad la kulantay ma jirto wax la yaab leh aad la kulantay ma jirto bal hal horta waa jira safarkayga horta intii safar aan soo safray wax u yaab badan aan arko wax waaye horta diyaaradda aan soo saarnay Ethiopian Airline ay ahayd sidoo kale waxaan soo maray labada meel aan soo maray waxay Thailand Bangkok Thailand iyo waxaan soo maray Ethiopia sidoo kale video waxaan sameynay ani vlog hadii qofkii daawadi waa daawadi safarkayga dadkana waxay jecel yihiin video qurux badan qofka misla keenay kaligiisa inuu video duubo marka ani waxaan sameeyay gabar oo isku safar ah ahayn intaan ka salaama waxaan dhahay walaashay miyaha
video iga dub marka waxaan sameynay markii Ethiopia aan soo maray xasuustaa markii diyaaradda aan soo dago mobilka ama kaamirada waxaan wada qofka dambe inuu kaamirada qabto marka ani waan soo dagay moogta iyadan borsay soo diray mobilka aan u dhiibay waan laabanay diyaaradda u laabanay intaasna waxaan rabaa muuqaal qurux badan inaad meesha soo baxo oo hadhow aan video ku daro marka tan iga badan waxay ahayd Thailand saasan sameeyay Ethiopia markii joyce sameeyay xamara imaadi waxaan rabay markii soo dagi inaan diyaaradda ku laabto anoo de mobilka u dhiibo laabanayo xarifka ma jooga dhahay inta socota muuqaalan doonayo aan muuqaalka ma naqaan baxal laay sawir ya gal wadamada shishay waa soo sameysatay wadanka u dhalatay marka hadii fiiriyeen markii soo baxay aabeeyaan weydii taas ay u dhacday aan dhahay sax waa asdhaa sababtoo ah meeshan aad joogto qof walba waa iska cabsanooyaa dadka wax sameynayaan lahay dadka dhalinyarta ah waay markaas aan fikiri marxaladii bay'ad lagu jiro ku markaas markii ninka saas igu la hadlay waan xanaaqi laakiin markii aabeey aan weydii xanaaq waa iga baxay washurta ii sheegay taas ay ugu yaab badneed ma sha Allah horta si nabad oo ku imaaday si farxad niideen kale ilaabi waa lagu soo dhaweeyay Soomaaliya markii aad ka maqneed oo Malaysia joogtay dabcan dareenkaaga san hadda u yahay ka duwana hadda oo Soomaaliya aad imaaday markii xagga aad joogto dareenkaaga sida oo ah hadda aad joogto hadda Soomaaliya wiliba gurigiina aad joogto dareenkaaga maxay iska bedelay horta markii ko Malaysia aan joogay si safarkii aan qorsheeyay horta haween walba riyoonay waxaan kuriyoon wax kale ma anoo diyaarad fuulo oo Soomaaliya joogo laakiin riyadii aan kuriyoon jiray hadda meesha aan fadhiyo waa dhawowday taas alxamdulillah taaganahay sidoo kale dareenkayga ma la cabir karo wax way qofka markii familkiisa asal joogo deegaankiisa kaliya ma aha wadankiisa kaliya ma aha familkiisa hooyadiisa oo dhashay aabihiisa sidoo kale walaalihiisa marka aad joogto dareenkaaga ma la cabir karo waxaan aaminsanahay the best emotional in macnaha qofka markaas as dareemayo anigana markaas ama hadda aan dareemayo dabcan dareenkaaga wax badan iska bedelay xiisii hamigii kugu jiray bal ka waran hadda sidoo yahay horta markii koo aan imaanayo waxa way xiisa badan ay ahay sidoo kale hadda intan aan joogo isbuuc week amal waaye wali waxa aaminsanahay week dambe bil kale xitaa hadii joogo xitaa inaan xiisa dhicin sababtoo ah waxaan ahay qof la jecel yahay sidoo kale qof familkiisa jecel ahay marka insha Allah kulli intii macnaha aan joogana taas li jeclaa okay youtuber oo waxa jiraan Malaysia idin la joogay oo ka soo tagay wadamo kale gaar ahaan Turkiga waxa la leeyahay youtuber Malaysia dabada loo soo qabanayo macnaha adina dadkaas ma ku jirtaa mise adiga waxa waaye Soomaaliya enjoy ku tahay oo horta sax waay horta dadka inta badan oo Malaysia soo tagayaan magaca loo bixiyo Turkiga kala bakaaraha Allah marka waxa waaye dadka inta badan youtuberada haday u badnaadaan xitaa markii soo baxayaan Turkiga u socdaan horta aniga ahaan markii soo baxay qorshayaal aan soo baxay kulli qorshahayga hadii as ii hirgalo alxamdulillah hadis ii hirgalo waayana rabbil caalamiin kulli haduu hirgalo haduusan hirgalin afka meel aadi doona meesha noqoto okay waxaad leedahay taageero badan waxaad tahay youtuber Soomaaliyeed Muqdisho aad door maalmood soo joogtay bal Malaysia markaad joogtay dabcan taageerin meesha waa joogaan laakiin Soomaaliya markay ama taageerayaashooda markay ku arkeen oo kale dareenkaaga soo noqdo dad waxa jira ku dhahan sawir aan isla galno Kamaal muuqaal yar iyo duub oo kale xagay inta bal difference u dhaxay horta Malaysia horta waxaan kala yahay wax waaye qof ku taageeray xitaa markii wadada ku arko waa ku taageeray ku dhahay waa iska ada wadadaas ku qaabo wadadaas ku arka wajigaas ku buusa qofkaasna YouTube-ka waa ka taageeraa waa ku daawada muuqaalada waa ku xiran yahay laakiin waxa ay cadaatay dadkaas qurbaha joogaan Soomaalida inay ka qalbi wanaagsan yihiin ka furfuran yihiin ka waji furan yihiin dadka Soomaaliya jooga dadka Soomaaliya jooga gob waaye xitaa wallahi baa ma idin sheegay hadda qof oo magac leh ama social media magac kale hadda tahay aba wadamadaas aad joogto Soomaaliya hadda imaado magacaaga wixii am meesha gaarsiisan yahay waa ogaan doontaa dad badan oo waxa jira oo hamigoodu uu yahay inay wadamada shisheeye iska joogaan Soomaaliya oo dhasheen hatta booqasho hatta aysan ku imaan bal ka waran maxaad hal ila dhihi lahayd horta dadkaas waxa waaye dad ani ahaan waxa dhaha dad wax ama absi ama sabab jirto awgeed ay u imaan waayeen Soomaaliya mooye qof walbo wadani ah ama meeshan ku dhashtay waa jecel yahay inaas imaado qofka dhahaayana ani Soomaali ma imaanaya ama inaan imaado diyaar muu ihi qofkaas ima laba siyaabood ay jirto waxaan isleeyahay ani
qofkaas asaa macnaha lug u duugan markeeda wax kale maaha si kale as meel kale qaaf ugu furan ama qofkaas asaa macnaha si kale laakiin qofka wadaniga meeshan ma huraya baabal waa imaana okay Malaysia markaa joogtay asxaaba lahayd oo team magaalada xataa waa aadi jirteen oo ay shay wax walba qaban jirteen okay inta markaa imaaday magaalo waa aaday dhowr mar aragnay muuqaalaha soo duubtay bal farqi ma u dhaxeeya jabiga iyo magaalada sida kale farqi waa u dhaxeeya farqi zaid u dhibo farqi u dhaxeeya wax kale ma aha markii Malaysia aad joogto vlog aad duubeyso wallahi been ma idin sheegay shacabka dhexdooda على دول مريكا مرتاد عندكم مشغولة ku fiirinayso wax ku dhahaysa malaha laakiin inta markaa joogto hadaraad shalay ma hadaraad video beerta aan soo duubay kaamiradan saan u haystay markii saan u haystay anoo saan u duubay duq waa la imaadi waxa la leeyahay video aduus dadkaas ina oo adid macnaha iiga duus oo umleynayeen jooji marka qof walba waxa waaye oo video saan u haystay wax umleynaa ina as duus kulli qofka ha u badnaa la yarta ma aha dadka da'da ha u badnaadaan saxna way dadka qaar kaamirada ma jecel laakiin wadankaas waxa aad as ugu fiican wax waaye social media mashquul qofku mashquul ma waxa samay ilaahu wada isku qaabi qofku fiirnay ma laha waa laga gudbaa leh youtuber badan oo waxaan aragnay oo Soomaaliya jooga oo intaadan imaanin dhahayay macna kamaalan soo dhaweynayna hatta muuqaal ka soo duubay soo dhaweynta soo qayb gal haddana soo dhaweynta hatta marka imaaday idil ugu ma arkin marka maxaa keen inaad is weysaan horta aan kala qaadin horta waxaan is leeyahay ani ahaan qof walbo qumanihiis maxaa la aqoonta ugu jiro sidoo kalena waxaa laga yaabaa kulli mashquul adduunyo ama wax kale inay jiraan laakiin ani ahaan waxaan maqli jiray ko markii Malaysia aan joogi jiray waxaan maqli jiray makasee youtuberada oo Malaysia joogan dhamaantood isku mid waaye waxa waaye qof walbo waa ku qoslaa mooye caloos waxa ku jiro Malaysia taas lagu cabaadi jiray kulli Soomaali ani kulli waxa ka aaminsanaay youtuber aad u fiican inay joogan sidoo kalena dadka hadda arko xitaa ma sha Allah dad wax way aad u fiican waaye waxa rajayn doonaan dadkaas oo kale inay noqonin dadka oo macnaha laga cabanayo macnaheedu ma Malaysia youtuberada ina ayno ma ama ay xun ma laakiin waa lagu xantaa sidaas adiga xitaa hadda youtuberada ku xiran tahay oo Malaysia waa maqash xantaas marka kulli waxaan dhihi lahaa ani xantaas meesha ka jirto youtuberada xamar idin soo dhaxgelin idinka kamaal warkiisa oo maqasheen inay warkaas uu safani u yahay enjoy sanayn okay dhanka raashinka soo laabanina si fiican maalin waxaan arkayay hooyo raashin ku siinaysa si fiican runtii qof walba oo dareen hooyo oo ku jiro si fiican waa dareemi karaa mafahmino markaas emotionkaaga horta dareenkaaga waxa way cuntadaas horta hooyadii macana cuntadaas gacanteeda ku sameysay wallahi been ku sheegay habeenkaas maalin quraac ay ahayd xitaa waxa way maalin waxay ahayd aad iyo aad macnaha igu farxad badan ahayd sababtoo cunto hooyada gacanteeda kugu sameysay haddana afka ay kugu gelisay gacanteeda waxa dareemaysid wax yar ma wax yar ma runtii marka qof dhowr sano ka maqnaa hooyo marka waxa way hooyadii macana ilaahay ii daayo cimri dheer caafimaad aan u rajeynaa kulli insha Allah waa tahay muuqaalkeen halkan ku soo gabagabeynaa kamal youtube-keena asxaabteen maxaa leedahay horta ugu dambeyn waxaan leeyahay waa ujeedin dawanan only maada youtube channelkan hadaa fiirsanoosid intana aad soo gaartay subscribe sar youtube wax enjoy ugu yahay taqaana like share comment dhammaan enjoy ugu dhig insha Allah muuqaalkan muuqaalka xiga inta ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo kamalna ma noqon doonto markii ugu dambeysay muuqaalo badan oo isaga uu ku jiro ama isaga uu noo soo duubi doono ayaa ka daawan doonta halkan bye bye